gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow iyo gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed ayaa maanta kormeeray xarumaha maamulka gobolka Banaadir si gudoomiyaha cusub uu ogaado hantida gobolka. Gudoomiyaasha oo ay weheliyaan ku-xigeenada cusub ayaa goobaha ay booqdeen waxa kamid ahaa xarunta dawladda hoose ee Muqdisho Vice Governo taliska ilaalada deegaanka Xamar xarunta daddegista iyo kuwa kale sida uu sheegayo afayeenka gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalane. waxaa laga bilaabay xarunta dawladda hoose ee Official Governo ama aqalka dawladda hoose halkaas ayaa xafiis shanta xafiis ee laga xukumo lagu wareejiyay dhammaan gudoonka sare cusub ee la soo magacaabay iyo gudoonka sare hore kadib waxaa la tagay xarunta la yiraahdo xarunta ciidanka ilaalada deegaanka Xamar ayay la tagay iyo daddegista oo waxa muhiim u ah ee dawladda waxa muhiim u ah sidoo kale waxaa la tagay xarunta Aquadoto oo ah xarunta ay degan yihiin shan waaxood oo waaxda dabdamiska waaxda gaadiidka waaxda bulaacadaha iyo jidadka iyo waaxda qorsheynta iyo tababarada ay degan yihiin ugu dambeyntii waxaan halkan ayaa nimid halkan waa xarunta labaad ee gaadiidka dawladda hoose ay leedahay waxa iga dambeeya waa gaadiidkii dhamaa ee dawladda hoose ay lahayd intaas gudoomiye Taabid ayaa tusayay u sharaxayay waxyaabaha ay yihiin si uu gudoomiyaha cusub walaalkeen injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow oo la wareego hawsha hortaala ee culusna oo halkiisa ka sii wado hadii Ilaahay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed ayaa la dardaarmay shaqaalaha gobolka isaguna saaxiibaday iyo dhammaan inta kale shaqaalaha kulligood sidii aad nala soo shaqayseen muddadii aan soo joognay inaad sidaa si la mid ah uga shaqaysaan maamulka cusub oo hogaaminayo gudoomiyaha cusub ee injineer Yariisow sababtoo ah shalay annaga waxaan wax ku qabanay meesha uu wax soo gaarsiiyey iyo horumarka uu sameeyey gudoomiyihii hore aan aniga bedelayay Sheekh Yuusuf maantana maadaama aad la soo shaqayseen anigana aad si wanaagsan ila shaqayseen inaad sidoo kale uga shaqaysaan gudoomiyaha cusub iyo maamulkiisa ayaan dardaarankaygu weeyay gabagabadii wuxuu dardaarankaygu yahay qof walba oo idin ka mid waxa ay saaran mas'uuliyad sida idin saaran jirta inaad ogaataan mas'uuliyadda idin saaran way ka duwan tahay mas'uuliyadda saaran mas'uuliyadda dawladda Axmed Saciid Axmed telefishinka Cable magaalada Muqdisho.